markaad fiirinayso shay meel kaa koreeya saaran shaygaana aadan weligaa horay u arkin marka si toos ah lagu horkeeno in muuqaalkii hore mid ka duwan uu kula yeesho la yaab male waxa laga yaabaa marka hore meesha aad ka taagneed in hal dhinac oo kaliya aad wax ka arkaysay waxa laga yaabaa midabku inuu isbeddelin laakiin halka dhinac aad ka taagneed inta ishu ay qaban karto kaliya ayaad wax ku qiyaastay laakiin markaad shayga dul timaado waxa laga yaabaa inaad tiraahdo shaygu inuu intan la ekaama moodayn tusaale waxaan ku siinayaa soo lagama yaabo inaad maanta aaminsantahay dadka wax ku dheer maxay wax ku tari la'yihiin sidooda bini aadamku markay wax ku dheer yihiin maxay naxariistu uga guurtaa ma isweydiisaa su'aashaas haddaba runta jirtaa waxay tahay jaranjarada isagu meesha uu joogo uu ku gaaray ma ahayn jaranjaro caadiya waxay ahayd jaranjaro saliidi ku daadsan tahay isagoo cagacadna la yiri kor marar fara badan buu kufay marar fara badan buu inuu ka dhaco ku sigtay mararka qaarkood buu ka soo dhacay haddana wuu ku laabtay rafaadkii isagu uu soo maray xanuunkii uu arkay habeenadii hurdadu ay ku yarayd saacadihii badnaa ee naftiisa iyadoo ay u baahan tahay inay nasato uu u diiday kala bakhaylay maalmihii dheeraa ee uu soo shaqeeyay kulaylka iyo qabowga lahaa diidmooyinkii uu la kulmay qalbi jabkii uu soo arkay buu wuxuu arkaa qofkaasu inuusan diyaar u ahayn inuu maro wuxuu rabaa xarig inta loo soo laadlaadiyo in kor loo soo qaado si tartiiba laga soo dul laliyo waxa meesha yaallo oo dhan oo meel fudud oo sahlan la keeno wax walbana gacanta loo saaro hamoodin inay naxariis daran yihiin adduunyada sidaa ka samaysan allihii adduunkan abuurayba kuma uusan oran noloshu way fududdahay adigu xaggeed ka keentay noloshu inay ii fududaatay ahayd qofku markay noloshu ku adkaato ayuu adkaadaa qofka nolosha markay ciriiri geliso ayuu meelu ka neefsada raadiyaa waxaadan u dhibtoon sideed dheeftooda rabta inaad ugu raaxaysato shay kastoo maanta aad qaban karto ama wax kastood maanta baran karto ama wax kastood maanta wax ku noqon karto sabab kasta oo aad uga leexanaysaaba waa qayb ka mid ah helitaanka shayga aad rabto inaad gaarto maxaa yeelay sida caadiga qofku markuu rabo meesha uu joogo inuu ka tago tusaale ahaan magaalada aad degan tahay maahane magaalo kale aad rabtaa inaad tagto waa lagama maarmaan inaad safarkaa marto ma tegi kartaa magaalada kale adoon diyaarad raacin ama baabuur raacin ama aan lugaynin adigu waxay doonto ha noqoto safarkaa in aad martaa waa lagama maarmaan qof kasta oo nolosha raba inuu wax noqdana safarkaasaa hor yaalla bini aadamka badankoodu boqolkiiba 95 aan iraahdo waxay isku dhiibaan tallaabada ugu horeysa dad badan waxa riyadooda ku jirta guur qurux badan oo kalgacal leh oo kalsooni leh oo labada qof ay isu dhow yihiin oo xasilooni iyo qabow nolosha uu ku dareemo laakiin xaqiiqadu waxay tahay dadka badankoodu inay guursadaan oo reer dhaqdaan diyaar uma aha u fiirsa marka laba qof ay reer dhistaan 6 bilood ugu horeysa ay wax bilaabanaysan hadalka la isku taago oo hadalka la isku qalqaloociyo oo la isdhibsado la iska raahsado oo dadka qaar ay yiraahdaan niyo guurkan inaan ka fiirsadayd waan ku yara degdegay 3 sano 4 sano soo wada socdeen maxaa khaldan hadda maxaa dhacay 6 bilood gudahood isbedelku muxuu yahay soo ma ahin labada qof inay isu soo dhawaadaan inay markii hore isaga kalsooni badnaadaan inay markii hore kalgacalka ka dhixay maanta inuu sii xoogsado maxaa khaldan waayo dadka badankoodu diyaar garowga waxay u haystaan ninku inuu lacag haysto gabadhuna ay qurux badan tahay laakiin inta reer lagu ma dhaqo guurkuna inta waa ka macna ballaaran yahay dadka badankoodu meesha isku dhiibaan ee sabab u noqota gurigu in uu dumo waa markuu ogaado inta ka badan in looga baahan yahay dulqaadkii hore mid ka badan baa looga baahan yahay fahankii hore mid ka badan baa looga baahan yahay tanaasulkii hore mid ka badan baa hadda looga baahan yahay kalsoonidii hore mid ka badan baa hadda looga baahan yahay dhinac walba wixii shalay qofka aad ku wada socoteen ka badan marka qofku uu ogaado in looga baahan yahay waa dadka badankoodu meesha isku dhiibaan tanina noloshooda oo dhan bay ka turjumaysaa waxaana arkaysaa qofku dhinac walba nolosha markaad eegto qofka laftigiisa markaad eegto dhinacyo fara badan noloshiisa inuu yahay qof si dhaqsa isugu dhiiba marka xaaladdu ay yar ku yara cakiranto haddii laba qof oo isla socota isweydiiyaan waalidka marka laga soo tago nolosha yaa kuugu muhiimsan qof walbaaba qofka kale oranayaa adiga laakiin meeshan si fiican u dhageyso haddiiba naftaada aad aaminsan tahay cid ka muhiimsan inay jirto xataa hadalaad afka ka leedahayba ha noqoto qalbiga yuusan kaa jirin waxbaa kaa khaldan koob faaruqii wax laga shubaa kuma jiraan markaad adigu naftaada faaruq tahay oo qiimaynta intaa la eg aadan u haynin aadan u arkin in naftaadu tan adduunka ugu muhiimsanay tahay naftaada aadan u arkin tan adduunka ugu qaalisanay tahay wax kasta oo hamba ah ama wax kasta oo liitaba naftaadaad u reebaysaa shay kasta oo qiimo leh ama wanaag lehna qof kalaad siinaysaa naftaadu waa dayacmaysaa dadka badankoodu marka lagu yiraahdo adiga adduunka iigu muhiimsan bari markii khilaaf dhaco maxaa dhacaya
qofkaas wuxuu arkayaa inuusan muhiim ahayn waayo been baad shalay u sheegaysay marka khilaaf yimaado waxa dhacaysa labada qof inay kala yara durkaan qofka kalena uu dareemo in sidii aad shalay sheeganaysay inaysan xaqiiqayn waana tan dad badan ay yiraahdaan qofkan moodayay ma baahanba waayo waxaad dareensiisay qofkan in uu yahay qofka adduunka kuugu muhiimsan laakiin dhaqankaagu hadda ma tusayo adduunyada waxyaabaha niyad jabka keena waa markaad adiga laftigaagu aaminto qof kale inaad muhiim u tahay oo uu waliba qofkaas ku tusayo in isaga naftiisu aysan muhiim u ahayn adiga aad ka muhiimsantood ka rumaysanayso xaqiiqaduna waxay tahay qofka aan naftiisa qiimayn qofka aan naftiisa ixtiraamin qofka naftiisa aan u arkin inay cid walba ka qiimo badan tahay cid kale wuxuu siiyo ma hayo haddaba ujeeddada intaasoo dhan aan tusaalayaasha kuugu siinayey waxay ahayd naftaadu inay ilaa xad kula gaarto aadan u quurin una oggolaanin in meel hoose nolosha ay istaagto haddii muuqaalkeeda aad ka joogto niyad ahaan ha ka joogin niyaddaadu mar walba mid sarraysa ha noqoto niyaddaadu ha noqoto mid mar walba rajadeedu ay wanaagsan tahay inaad horta nolosha ka quusataa wax ku jiraa ma jiraan sanduuqaas waa faaruq waxba kuma jiraan hal shilinna kuma jiro qofku nolosha inuu ka quusto markay xagga ilaahay noqotayba dambi ku noqonaysaaba waayo naxariista ilaahay rabbi wuxuu ina leeyahay naxariistayda ha ka quusanina haddaad isdhiibto oo aad nolosha isu aragto waxaan jirin inaad tahay sidii wax la nacay oo cir iyo dhulba adduunyada wax danaynaya aysan jirin markaad isu aragto adigaa meesha isdhigay way naftaadu ay qiimo kula lahaato labiska aad xiran tahay iyo meesha aad joogto iyo aqoontaadu inta ay tahay waa inaad mar walba ogaato bini'aadantinimadan ilaahay adduunkan inuu ku keenay baan wax la siistaba lahayn halkaasaa dhismaha qofka noloshiisu ka bilaabataa ciidan walbaaba xero u ka soo duulaan taguu leeyahay xooluhuba xero ay ka soo fulaan bay leeyihiin bini'aadankuba guryo ay ka soo baxaan baa jira haddii uusan guri lahayn dhulka meeluu ka soo kacaa jirta qofka dhismaha noloshiisa iyo in uu wax noqdana meelay ka bilaabataa jirta ha quusanin ha isdhiibin waxaad ogaataa sideedaba quusta wax ku jiraa ma jiraan iyadoo rabbi uu ku leeyahay naxariistayda ha ka quusan inaad tiraahdo ilaahu naxariistaadii waan ka quustay laga yaaba inaadan afka ka oran laakiin qofka si dhab ah naxariista ilaahay rajo uga qaba dhaqdhaqaaqiisa laga gartaa isku dayigiisa laga gartaa ma quusto maalin walba wuu isku dayi hadduu si kasta ugu guul daraysta isma dhiibo laakiin qofkaan naxariista ilaahay rajo ka qabin meel buu iska fariistaa isagoo rajaynaya nasiibka waxa la yiraahdaa adduunka inuu mar uun la kulmi doono wax walbaana sida uu rabo inay noqon doonaan laakiin mid baan kuu hubaa haddii aadan naftaada khiyaanayn ee 365 maalmood ee sanadku uu ka kooban yahay 24 saac intaad cunto cunayso intaad cibaadaysanayso marka laga reebo naftaada aad ku bixiso waxaan kuu hubaa in horumarka aad samaysaa uu kuu muuqan doono cid kasta oo sidaa kuu eegtaba inaad tusaale u noqon doonto laakiin su'aasha isweydiinta le waxay tahay ma isku dayi doontaa